wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka. Magacaygu waa Idris Cabdi. Qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin: gudoomiye Jirweyne oo ballan qaaday in usbuuca soo socda la soo afjari doono barnaamijkii kalsoonisiinta. garab ka mid ah ururka haweenka boqortooyada ayaa urur cusub kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho. idaacadda Hayba News oo tagtay tuulooyin badan oo hoos timaada gobolka Shabeellaha Dhexe. abwaankii weyn ee Maxamed Cilmi Aadan oo gabay cusub soo saaray. intaasi waa qodobada wararkeena ugu door karoona caawa. halka uu idinkaga imaanayo waa istiidiyeena magaalada Jidda. ku soo dhawaada asagoo fidsan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركي وفتسان قدومية أنشاء أيها حالين خلافات كمدان حسن إبراهيم جروينة أيها ساكي شيغي شر وكو قبطي شر جرائد وكو قبطي قسر كبخورتوية دا إن أسبوع فود إن قصوها يلسو أفجر دون برنامج كي لوغو مقعدري كالسونيسين تا قدومية وارنتا سكاد لا ينوحا ويري صدر سيدة بركة وحان ولا لهيغا شرفت له قيمها يوقعيها له أنكو بورينايا mar hore hadii la isku dhex muunsanaa kulli taba barnaamijkii kalsoonisiinta dhaartan macnaha waa inoo socdaa. waxaan u maleynayaa insha Allah isbuuca food lagu soo leh in macnaha aragga uu soo gabagaboobi doono dhammaan ay wada noqon doonaan inta ku soo hari doonto qolka weyn ee boqortooyada in wada dhaarsan oo kalsooni lagu qabo. garab ka mid ah ururka haweenka boqortooyada ayaa urur cusub kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho. ururkaas oo la magac baxay Wasa Association. Maryam Abdullahi Khalifa oo u hadlaysay idaacadda Hayba News ayaa xaqiijisay arintaas. ما شاء الله تبارك الله. واجران قدومية شرارة جري هوسة gabdhaha ay ku kulmayeen waliba gabdhaha Wasa Association gabdhaha qaas groupka u sameystay oo ugu talagalay bulshada inay la dhex galaan magacaas iyagoo hadartaan xaaladaha jira wadanka fahmi kartid qabiil meel taagan oo imtixaan cid rabta ma lahan. anagoo barnaamijkaas ku galayno oo dhageystayaal sida aad wararkeena ku maqleyseen waxa safar ku marayay tuulooyin fara badan ee hoos timaada gobolka Shabeellaha Dhexe. wakiilka warbaahinta Hayba News Cabdirashiid Sugow Kuulow oo safarkaasi ka soo laabtay haatan ku sugan istiidiyeena labaad ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar Eyle ayaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka si uu markaa warbixin nooga siiyo tuulooyinka uu safarkaasi ku maray iyo waxa uu kala soo kulmay oo ka soo arkay meeshaas. mudane Cabdirashiid ku soo dhawow istiidiyaha koowaad ee magaalada Jidda. bismillaah amma ba'd aad ayaan ugu dhawahay. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan howlwadeenada iyo wakiilada warbaahinta Hayba News Media meel walba ay joogaan. istuudiyaha koobaad ee Hayba Newsna waan ku dhawahay insha Allah. maalmahan waxaan ku maqnaa safar shaqo oo runtii markii la yiraahdo safarkaasi laba qaybood loo kala qaado qayb oo aniga igu gaar ah iyo qayb boqortooyada u gaar ah. markii aan wadaho boqortooyada ku gaar tahana yani danaha boqortooyada baan ku socday iyo isku xirka bulsho weynta iyo dhalinyarada ku nool Shabeellaha Dhexe. tuulooyin fara badan ayaan maray oo runtii ay degto boqortooyada. waxaa kamid ah tuulooyinkaasi jameeco oo deegaanka la yiraahdo garas dheere jameeca deegaanle iyo majabaale maqarey buula barako iyo tuulooyin irile ama xoolaali ah intaasan tagay. ma sha Allah waana ku caafimaad qabeen sida iyo ahwaashooda iyo waxyaabo badan iyo aan u soo wareysanay. kadibna waa aanu ka soo noqday saako ah maanta oo talaada ahna si fiican ayaan ugu soo noqday. runtii waa meel hawl u baahan shaqana u baahan baadiyana ah dad badan ay ku nool yihiin
waa meel runtii u baahan in yacni gacan qabasho iyo midayn iyo in wax loo sharaxo u baahan. waa dad reer baadiye ah marka waanu ku dhowahay stuudiyaha labaad hawshaasi ayaanu ku maqnaa iyo midayntaasi isku xirkaasi dhammaan waan u mahadcelinayaa warbaahinada iyo howlwadeennada iyo wakiil wareedyada Haven News Media meel walba ay joogaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi. mahadsanid Cabdirashiid. intaan u gadin gunta iyo gunaanadka barnaamijka dhageystayaal waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo gabay oo cusub oo xalay uu tiriyay abwaankeena weyn ee qaaliga ah abwaan maxamed cilmi aadan oo ku sugan magaalada muqdisho. dhageysi wacan. aldiimeedna waa nabi ashahaadan waa door markii iirka loo jeede argagaxyo waa ninka la jabe ee loola kor joogo anshaq dhale iimaanaa uur buuxiyo nin walba usho anshaqaa ee waloogu suraa nin walba ilintoo anshaqa haddii loo aroosgeliyo uurka maalma qabeeney waas idirisow adduunyadan aadan iyo xaawo mugii lagu idleehaay abliisaa ku soo aadi waatanoo kala irdhooween waaskaana idriis urubbi iyo aasi iyaarta noo joogto eyla aas-aaskeeda waa aloo aanfanigahay eyla aas-aaskeeda waayo waas idriisoo aloo aanfakahaa ilaahayaa aanfanagahaaye waas idriisow waasaan idriis urbi iyo aasiyo iyaarta noo joogto oo aas-aaska ay leewadaan ilaahow aanfanagahaaye in dheer garad la-aan nin aanfawado oo usha loo dhiibi. waxaad dhegeysateen war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray caawa intaan